maanta waxaan ka hadlaynaa Shayruukhan oo maalmihii ugu dambeeyay keenay filmaan inaba aan caadi ahayn. Hadda xitaa ugu dambeyn wuxuu ka soo muuqday filimkii Tiger 3 ee Salman Khan. Cimriyaanta Shayruukhan meeqa film ayuu keenay, bal maanta nala arag inta film oo keenay iyo sanadihii oo kala keenay intaba. Mahadsanid. Filimkiisii ugu horreeyay 1992 Deewaana ayuu ahaa, asaga English ayaan asla keenay. Kii labaadna asaga Jalwa ayay ahaan, Jamadkar ayaan la dhahaa. 1992 ayuu jiray labadaba. Shayruukhan markii uu soo baxay saacada wuxuu ku soo gaasay dardar 92 wuxuu sameeyay filimkii Dil Aashana Hay. Sidoo kale filimkii Raju Bangian waa uu sameeyay. Sidoo darteed sanadkiisii koowaad ee 92 wuxuu sameeyay 4 filim. 93 wuxuu keenay King Angel, asaga iyo Jackie Jirif ayay ahaayeen. Isla 93 sidoo kale wuxuu keenay Maya Mensab. Isla 93 wuxuu keenay filimkii Bazigar. haddana 93 gudaheedana wuxuu keenay filimkii Daraar asaga Sanadol. Sanadkiiba ninkan laba film ayuu ka tuuray dardar ku soo galay. Sidoo kale 94 wuxuu keenay Kabihan Kabina filimka lagu magacaabay. Sidoo kale Anjam wuxuu keenay 94 waa iska laba film weli sanadkiiba. 95 wuxuu keenay Karni Arjun asaga Salman Khan. Sidoo kale tan wuxuu keenay Samana Deewana. laakiin sanadkiisii ugu horreeyay 92 wuxuu keenay 4 film ya score waa kaas. weli waxaan ku jirnaa 95 wuxuu keenay Guddo filimka la dhahay. Sidoo kale filimkii wuxuu keenay Oh Darling Yahay India. sanadka 95 asagana 4 film ayuu keenay inaba caadi maaha. waa waray weli 95 ku jirnaa Dilwara Dul Jahin la dhahay. asagana filimka 95 ayuu keenay. Sidoo kale Ramjanina 95 ayuu keenay. Sidoo kale Trimurtina 95 ayuu keenay. sanadkii 1995 ninkan 7 film ayuu keenay. waa waray score caadi ah waa kaas. 96 wuxuu keenay English Babu Disman. sidoo kale 96 wuxuu sameeyay filimkii Jahad. Armin sidoo kale wuxuu sameeyay 96. 97 wuxuu keenay filimkii aadka aan u jeclaa ee Koyla. sidoo kale wuxuu keenay filimkii kale ka dhacay Yes Boss. 97 loo film. sidoo kale 97 wuxuu keenay filimkii Baardiis filimkan jeclaan caadi ahayn waay. sidoo kale Dulka Baagalhayn waa uu keenay asagana sirkiisna waa jecel inaba caadi ahayn. 98 wuxuu keenay Duplicate laba Shayruukhan. sidoo kalena Dilsi ayuu keenay 98. ninkan waa shaqeystaan ku dhah. 98 sidoo kale wuxuu keenay filimkii Kujigo Wata heesankaas jecel u shidnaaya. 99 keena Badsha filimkii actionka ah ee Jackie Chan laga soo koobiyay. 2000 wuxuu keenay filimkii wadaniga ah ee Firbi Dilhai Hindustani. sidoo kale Joshna 2000 ayuu keenay. Josh New filimkaas oo xiisay. weli 2000 ayuu ku jirnaa wuxuu keenay filimkii Hayram. sidoo kale filimkii Muhabbateen ee Caldheer Laadaq oo ka asagana 2000 ayuu keenay. 2001 wuxuu keenay Asoka. sidoo kale Kabikushka Biham filimka Caldheer hirtag ay kula jireen 2001 ayuu ahaa. 2001 sidoo kale wuxuu keenay 12K4. sidoo kale 2002 wuxuu keenay Hum Tumhare Hai Sanam. sidoo kale 2002 wuxuu keenay filimkii Devdas ee qamriga ku caan baxay. sidoo kale Shakti Power wuxuu ku lahaa qayb filimkii oo Yashwant Ladar ka ahaa. waxyar ayuu ku lahaa filimkaas 2002 ayuuna keenay. 2003 wuxuu keenay filimkii Jalte. sidoo kale Kalhoon wuxuu keenay 2003 markaas hore u sii socda ninkan ya. sanadkii 2004 wuxuu keenay Yeelam Hejudaye. sidoo kale filimkii Menhona ee Balon Ladarka oo ka ahaana wuxuu keenay 2004. wiil 2004 sidoo kale wuxuu keenay filimkii Vera Sara iyo filimkii kale la dhahay Iswades. 2005 hal film oo kaliya ayuu sameeyay kaasoo la dhahay Beheli. 2006 wuxuu sameeyay Kabi Alfidana asaga iyo wiilka Caldheer iyo Caldheer Natrkiisa. 2006 wuxuu kaloo keenay filimkii Don. 2007 wuxuu keenay filimkii Jagde India kaasoo cricket ku saabsanaa. sidoo kale 2007 wuxuu keenay filimkii Omashadi ee Golf Ladarka oo ka ahaa. sidoo 2008 wuxuu keenay filimkii Ramne Bana Diljoti. 2009 wuxuu keenay filimkii Bilo. sidoo kale tan 2010 wuxuu keenay filimkii la dhahay My Name is Khan. 2011 wuxuu keenay filimkii Ramon. sidoo kale 2011 wuxuu keenay filimkii Don 2. 2012 wuxuu keenay Jabtaka Haye Jan. sidoo kale 2013 wuxuu keenay filimkii Jina Express. 2014 wuxuu keenay filimkii Dansiga ee Happy New Year. sidoo kale 2015 wuxuu keenay filimkii Dilwala si ka jar iskugu soo laabteen. 2016 wuxuu keenay filimkii Fan ee taageeraha muujinayay. sidoo kale 2016 wuxuu keenay filimkii Dear Zandagi. 2017 wuxuu keenay filimkii Rais iyo sidoo kale filimkii Lijiri Jabhere Message.
sanadkii 2018 wuxuu keenay filimkiisii Zero 5 sano kadib ayuu saaxadda ku soo laabtay asagoo la imaaday filim la yaab leh oo la bataan sidoo kale 2023 wuxuu la imaaday filimkii hore ka sii daran ee lagu magacaabo Jawan annagoo ilaa hadda sugayna filimkii Dankii asagana uu sameeyay 2023 madhowna Soomaali soo gaari doono Shiruq hadda waxa uu diiwaan gashan 66 filim aktarka xigay aan falaqeen doono waa Sanadol aktarka weyn oo asagana sanadkan la imaaday filimkii Gadartu oo wacdaraha dhigay inta film oo Sanadol oo keenay iyo waqtiga oo bilaabay oo soo gudbi doona waad ku mahadsan tahay daawashadaada channelka aad ku subtahayna si barnaamijyadan ay soo ku dhaafin subscribe-ka dhac ku dheh gamalada kala noo taabo lacagta waad dhiirigelintaada waad ku mahadsan tahay dhan kasta aad naga caawisay